dadweynaha ku dhaqan tuulada Alcadde ka tirsan degmada Garadag ayaa waxa ay walaac xoogan ka muujiyeen maamulka dugsiga hoose dhexe Saleebaan Cabdi Ducaale Kaba Jaqaf oo xilkii maamulnimo ka qaaday wasaaradda waxbarashada ee degmada Garadag. Dadweynahan oo isugu jiray waalidka iyo ardayda uu maamulaha u ahaa ayaa ku soo dhaweeyay tuulada Alcadde lana hadlay TV-ga Universal. maamulaha iyaga Saleebaan Cabdi Ducaale way eedeysan yihiin waxaanu kaga qaadaynaa tallaabo sharciga waafaqsan ayaanu kaga qaadaynaa waxaanu doonaynaa oo kale maamulaha iyaga waa ku qanacsanahay waxaan si cambaareynaya wadayaasha guddiga magaalada ee qaaday warkii aan waxba ka jirin iyadoo aanayna soo booqan haddaan nahay shacabkii iyo ardayda iyadaana soo booqan waxaan leenahay maamulayaasha iyada iyo macallimiinta iyadana waanu ku qanacsanahay wasaaradana hal baaq baan u diraynaa waxaan u diraynaa maamulaha iyaga hadda la shaqeynaysaana la shaqeeya haddii kale maxay tahay saaro inaanay xilka ugu wahayay aan ahayn karin anigu waxaan ka mid ahay ardayda ka mid ah iskuulka Alcadde dugsiga Alcadde dhigata waxaan garanayaa ilaa 2005 2010 ma jirin qof heer Alcadde deegaanka Alcadde ku nool oo magaciisa akhri kara ama sawiraad maxay tahay qori kara intaba isaga ayaa la arkaa maanta inta ka bacdi isaga ayaa soo waday maanta Alcadde aan waxno tallaabo sharciga waafaqsan iyo sawdka aanu leenahay iyo baawarkaygaan ku muujinay shaqadu hayay iyo hawsha hayay qaban kartaa oo fulin kartaa ama shaqada sidii u wadi jiray u wadi kartaa anagu ma garanayno kuma garanayno deegaankan Alcadde kuma garanayno boqoradantana kuma garanayno qof kasta anagu waxa weeyaan humaaga ayaa u muuqday waxaan leenahay humaagaas maxaan ku radaa qofku ha dhaafo aragiisa humaaga ha dhaafo waxaan leenahay qofku waa inuu iska gubiyaa hadalkiisa iyo hawraartiisa iyo meesha inta dabadeed waxa sugana meesha ka hadlay maamulaha xilka laga wareejiyay oo lagu soo dhaweeyay tuulada Alcadde mudana ku xidhnaa saldhigga dhexe ee degmada Garadag sheegana in lagu xidhay xaqdarro cad una wareejiyay xilkii maamulnimo degmada Garadag waxaan ka qaadnay xilkii saakana oo subaxan waagiis barina waxay u socdaan iyagoo iman doona oo arki doona dhacdada ka dhacday iyo soo dhaweynta ka dhacday Alcadde oo kaanu joogno iskuulkii yahay waxa ay gobolka Sanaag geeyeen oo ay Garadag mariyeen oo ay Hargeysa u direen nin la yiraahdo Dutumaawi mooyaane Alcadde Kaba Jaqaf wax rabaa ma jiraan maamulaha dugsiga dhammaan reer Alcadde oo mahadnaqaya mudane iyo marwaba waa salaamad dhanka kale goobtii ay ka dhacaysay xil wareejinta ayaa waxaa ka dhacay buuq badan iyo dagaal gacan ka hadal ah halkaasina waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada Garadag iyo waxbarashada hase ahaatee waxaa suurtageli weyday inay meesha ka qodbadayaan madaxdii ka soo qaxaadirtay iyadoo qaylada iyo sawaxanku cirkiis ku shareertay si kastaba ha ahaatee iskuulka Alcadde ayaa xidhnaa muddo hal bil ah halkaas oo ay ardaydu ku waayeen imtixaankii half-termka Axmed Jaamac Aadan telefishinka caalamiga Universal Garadag.